wasiirka wasaaradda warfaafinta ee maamulka Khaatamo Axmed Xaaji Cali oo maanta warbaahinta kula hadlay Buuhoodle ayaa waxa uu sheegay in maanta wadanka Djibouti gaar ahaan caasimadda Djibouti ay ka furmeen wadahadaladii u dhaxeeyay maamulka Khaatamo iyo Somaliland. sidoo kale wasiirka ayaa si adag uga jawaabay hadal ka soo yeedhay wasiirka arrimaha gudaha maamulka Somaliland Yaasiin Faratool oo xalay sheegay in Hargeysa uu soo gaaray madaxweynaha maamulka Khaatamo isagoo ku tilmaamay inuu hogaaminayo koox yarwaashada hadalka u dhigay. wasiirka ayaana uga degay wasiirka arrimaha gudaha Somaliland hadalada xanafta u keenaya wadahadalada Somaliland iyo Khaatamo waana kan isagoo amurahaasi ka hadlaya. maanta oo ay bishu tahay 7 sida la wada ogyahay waxa ka socda wadahadaladii Khaatamo iyo Somaliland qaybahoodii ahaa technicalka guddigii farsamada iyo barnaamijkoodii ayaa ku jira xubnihii loo egmaday si ay u hubiyaan wadaxaajoodadii hore ee dhacay shirkii hore ahaa ee Addis Ababa ee 11 qodob ay ka soo baxeen wixii fulay iyo wixii aan fulin ujeedada loo ambabaxayna taasay ahayd shir kale ma bilaabin weli waa 11 qodob iyo istultaagooda maxaa fulay iyo maxaan fulin 11 qodob oo aad moodo qaybo fara badan oo kamid in jilaac ku dhacay fulitaan la'aan ay ku dhacday oo anigu haddeerto warka baaban kaga faa'iideysanaya aad su'aashay shirkaas horta uu socdaa guul la kala keenina shirka Somaliland iyo Khaatamo u bilaabmay 17 bishii December uga bilaabmay Addis Ababa oo badan baa u soo dhiiladaasaday heer federaal iyo heer Puntland iyo heer Somaliland ba shirka waxaan u arkaa wanaaga iyo qiimaha uu ummadda reer Khaatamo iyo reer Somaliland ugu fadhiyo wuxuu yeelanayaa cadow badan cadowgana waxa ugu daran ka cagaaran ee ku dhex jira maamulada ama Khaatamo ku dhex jira ama Somaliland ku dhex jira waxaan kaga faa'iideysanayaa hadalkan qodobo aan u arko kuwa maanta laga wada hadlayay inay yihiin oo ugu dambeyntii xalayta laga hadlayay nin horgalada Somaliland kamid ah oo la yiraahdo waa wasiirka arrimaha gudaha ee Somaliland marada Somaliland wada hadlayno inaanu ku xaqnowro waxooda xaq baanu anagu u leenahay iyaga laftoodu inay nagu xaq dhowraan karaamada iyo Khaatamonimada waa leeyihiin laakiin waxaan maleynayaa horgalka dabeecadiisa waxay tahay ilaa uu meel isku qaado inuu yiraahdo ma bisla arrintaadu waa kuma horgalkaas waxa weeye Yaasiin oo xalayta ka hadlayay Faratool oo ka hadlayay shirka iyo wadahadalka si bool u hadlay waxaan leenahay wuxuu meel ka dhacdaana ku sameeyay qodobkii labaad ee heshiiskii lagu galay oo warqadiisa ay tan tahay oo ahaa in wixii fadqalada iyo dacaayad gudaheena ah in meel looga soo wada jeedo waxna laga qabto waxaan leeyahay haddii lagu ogolaado dacaayadda iyo kicinta ummadda reer Khaatamo iyo hadalada meel ka dhaca magac wasiirna uu sheeganaya anagu waxaan u aragnaa Khaatamo haddaan nahay Somaliland baa la ogol arrintaa waxaanu rabnaa si wada hadalku u sii socdo oo qodobka saddexaad sheegayo oo caddaynayo in meel looga soo wada jeesto ciddii xumaynaysa ama gacan saddexaad ku ah wada hadalada anagu diyaar baan u nahay laakiin wasiir Faratool wasiirka arrimaha gudaha Somaliland weeye wuxuu sheegay in madaxweyne Cali Khaliif madaxweyne Khaatamo ay soo kaxayeen ciidamo Hargeysa keeneen ilaa Burcad soo wadeen ilaa Yeelo soo wadeen buu sheegay marka maxaa ku jaban علي وأنا معنين ميسد وشرح ميسد هذا فرطول جروب كجا هذا وكوح كجا وكوح مني جروب نملين سيدا أكون شيء أنا هرجلات وحي هران إن أنا رجع رئيس كبدين سيدا معي هذا حكومة Somaliland قال هالمدحوينها ما كره هذا شيء هذا الحالة فرطول سيداي Somaliland هذا كمدحوينها كمان والله هذا أنا وزير المفاطنة هم قابل سنة وحلا على وحي مضركوا هذا الآن نجيين كوا هذا كوحنا أنه هذا كأنتي سبلنا هذا وجدنا هرب الله الماي إن رجوا ومن حد وملي حكومة Somaliland وهذا كل وصل إلى إيران سو كومي تونك كلهم يعني كل شيء عندي فترة الله يمل كذا قوة جوده الأهنا أتلاقى كذا نكرر بلا سيل وارك عند أنه يا والله الوزير هذا سؤال كودي دعوة كذا عيربوت كبد بعض خاطم محمد هذا بعينا شكت وركاني لكل عيان ما حد بس عطنا ساعة وسير أنت مدحوينها كهذي سقروح بدل وعادية بقالية ولوجا سولوية دجان قوة هذي أنت والله هذي دونا وصحابنا الله كمان دونا عادية بهذا كمدحوينها الدجان كلوجا سولوية
هذا المدحوين وهذا البوتيادة والدنبقى عندي لهاي وصاري وهو بطلان كتب يسي بطلان مالا لهاي وكيس كان وهنا ما شفتوه. وعلى عثمان اسماعيل دكتور ورقة تلفزيون عالمي اسماعيل ريوس مقالة بوهول حرونت قبل كعين.